it's funny because maadaama ninkan dee Kira meesha hayso iminka meesha la rabo in laga tuuraba waxaan tusaale ugu soo qaatay oo nidhi alla ninkan characterkiisa marka arkay suu hadlayo ninkaas dee Mr. Collins character ku jiray buugagii dee naagtii la oranayay Jane Austen ay qortay afar mise shan buug afar buug baanu sheekadooda aqaanaa yaa filmna xitaa waa laga sameeyey oo waxay ahayd naag 18th centurygii ingiriisiya oo ka tirsanayd gurubyadan gentile classka ama the gentry waxaan ma dhibaan iminka noqon doona ka tirsanayd bay ahayd oda waad ka fahmaysaa sheekada meesha laga keenay eventually marka naagtaasi waxay ahayd social critic dadka buugageeda iyo sheekooyinkeeda markay qoraysay dadkay ka hadlaysay societygu say u dhaqmayaan siday yihiin iyo waxaas way criticize gareynaysay oo sida sheeko xariir oo kale usoo tabin jirtay characteradeeda buugaga ay ka qortay ay buugageeda ku qortay waxay ahaayeen dee wax maaragtay bulshadaad ka arkaysid say u dhaqmayaan say iskula dhaqmayaan marka characterka Mr. Collins wuxuu ku jiraa buugga la idhaaho Pride and Prejudice oo noqonaysa dee kibir iyo ad Soomaalihaan haddaan u eegno kibir iyo dee istaakulayn miya prejudice kibir iyo cunsurinimo basically ay classyadu isku qabaan marka Mr. Collins halkaasuu ku jiraayo waa nin coona oo dee niman badan oo maxaa la yidhaha societyga Soomaalida ku jira hadaad u fiirsatid waa arkaysaa kuwa iyaguba dee hoosta kasoo bilaabay oo gentile classkii markay noqdeen iyo haddana hadhow toolaysa sii weyneynaya oo robot noqday marka ninkani saasuu dabeecadaasuu leeyahay waa ninkan Labour Partyga hogaaminaya isaguna waa sidaa dee waa nin meel hoose kasoo bilaabay nolosha oo imika kibirayba oo suu dee nin khatara nin goba iska dhigayay buu robot noqday it's funny haddaad u fiirsatid buugag kale aan akhristay iyo filmada xitaa aan ka daawaday waxa weeye buugan kale la idhaaho Sense and Sensibility waxay ka hadlaysaa basically waxay ku saabsan tahay dadka cadiifada iyo caqliga sense waa caqliga iyo cadiifada dadka societyga ayay wax ka sheegaysaa dadba markay debate gareynayaan cadiifadun ku debate gareynaya dadba caqli ku debate gareynaya obviously Mansfield Parkna waxay ka hadlaysaa gabdhahan iyo ciyaalkan maaragtay reerahoodu ama abtiyaashooda ama adeeradood meel fiican societyga magac ku leeyihiino waxay qaabilayaan ama ilmo bay soo korinayaan dee familiyahooda socially dee hooseeya ay soo korinayaan oo dee basically dee societyga soo gelinayaan marka Mansfield Park waxaasay ku saabsan tahay inan abtigeedu tegaysa abtigeedoo dee nin iska ladan iyo waxay la kulantay ka hadlaysaa sheekadu waa sheeko Soomaaliya haddaad u fiirsatid marka saddexdaa book baa very interesting haddaad u fiirsatid marka dadku kulli waa markaan ku leeyahay waa wada gentile class badankoodu because noble waxaad noqonaysaa markaad dhul badan leedahay dad baa jira aan weligoodba dhul haysanin oo iska dega oo de iska gentile classka oo class maxaa la idhaahaa iyo artisan class classyadan farsamada oo intaa ku habiya oo caadi ay tahay laakiin imika waxaa la wada noqdaa waxa la rabaa in dhulboobkan jira waxay keenaysaa dadka inay wada rabaan inay noqdaan maxaan ku idhaahayey noble dee dhulle ile noblenimad waxay ku imanaysaa markaad dhul leedahay marka ani cadiifad maaragtay dhul may hayso because familigayga awowgay iyo aabahaya ibantoo dagaaladii wixii oo dhan ba cirka galeen oo la wada qaatay oo la wada boobay anuu meelo dad dhul ay soo koriyey laakiin farsamada iyo waxaas nawaaban iska jecelahayba waxyaalaha ku saabsan farsamada iyo dee in profession la barto anu waaban iska jecelahay marka dadkiina cadiifad baa idin haysa wax self hate la yidhaha baa idin haysa anyways so waxaan kusoo koobayaa maadaama suradal madajilla jirto dajilla
oo dee aad kayskaada argi garayn karaysid moogtahay yaa dhibaatada iyo maxaan ku idhaahayey waxaad ka cabanaysid waa inaad soo gudbin karaysid you know what I mean oo dadku kula eegi karayaan iyaguna hadday qabaan ay kula eegi karayaan diiniyahan wayba furan tahayba ma fahanteen marka dadkan aad aamus waxba ha ka hadlin aad leedihiin yaa waa cadiifadnimo weeye waxaasi wax diiniyahan xitaa furanba maaha banaanba maaha in dadka la caburiyo qof kastaba kayskiisii wuxuu ka cabanayo wuu keeni karayaa yaa suuraddaasna waxay ka hadlaysay gabadh u timid nebiga wax ka cabasho qabtay ma fahanteen marka suurad dhan baaba soo degtay inaad ka hadli karaysid waxaad rabtid inaad ka cabashid yaa aamusa ha ka hadlina waxaasi wax dee adduunku ku shaqeeyo maaha isfani dhaqankii hore soomaalidana gabdhuhu waxaa jirta xitaa meel ay kusoo bandhigayaan dacwadda iyo disputeka iyo the argumentka ay rabaan inay la wadaagaan bulshada yaa oo dee waatan xitaa crafts noqotay oo dee maanso kamid ah poetryga ama dee gabayaasha noqotay buraanbur noqotay ilan gabdhuhu waa meeshay waxay ka tacabanayaan ay kusoo tabinayeen waa an art form of expressing their voice yeah codkooda ay ka dhiibaan way buraanburaan iminkana waaba la isku caayaya sidii naagahu buraanburaa hadda xigmadda ku jirtaba maba garanaysiinba ma fahanteen marka waxaan oran lahaa intaasina waa in yaroon ku raba inaan ku daro waxaan ka hadlayay hadday wax kale igu soo dhacana waan soo dhigayaa meesha maadaama ad signka ka hadlayno the oneness waxaa dhan la isku wada keenaya cilmi kasta oo diiniyahan iyo dee dhaqaniyan loo eegaya oo wixii khaldan la saxayay intaasina waa intaa waan idin salaamay